waxaa dhacday walaal meel waxaan soo galay track stop ah oo shidaalka laga qaato. Shidaalkii baan qaatay, gudahan galay kafee baan rabay inaan soo qaato. Marka gaarigayga gaari u eg baa isu ag istaagay oo baabuurta waaweyn ee xamuulka. Marka way isu eg yihiin, gaariga iyo gaarigu way isu eg yihiin, waa isku kambani. Awal waan loo garaysan jiray arbaabada, laakiin maalinka ilaahay amarkii waan ilaaway. Gudahan galay gaariga kale marka ninka wata xaaskiisii uu maalinkaas soo kaxeeyay. waa reer dhan oo guuraya waa macnaha. ها ده بالكو سرير دنبنا ولا هو اسك غوري عادي ما وقته واغرت فريجكي iyo microwave-ki cuntada lagu kulleynayna waa ku yaalaan واغرت marka qoyskaasi shaqana waa ku jireen waana safar caadi ah way isaga jireen haye marka waxaa dhacday ninkii iyo naagtii wixii gudaha galanay iyagu laftirkooda waxbay soo qabsanayeen anna gudahan galay gabadhii uu odaygu qabay baa noogu soo horbaxday macnaha dhinacii baabuurta soo حتى أوجاري كوسا gaarigii bay soo gashay horay sariirtiisa ka tuurtay horay sariirta tagtay marka baabuurkuna wuxuu leeyahay bahalo u dhaxeeya darawalka iyo sariirta oo daah camal oo u dhaxeeya sariirta iyo steerinkii xaggii gaariga laga wadayay waa taha anigu gaarigaygaan soo galay dhinacna ma eegine furahan ku rogay dawadadaan qabsaday waa gartay iyaduna waxay mooday odaygeedii inuu gaariga soo galay meeba sii walwalinba waa gartay taraaglayaashu waa taqaanaa telefoon baan iska galay moogta taraagyadu waa isku soo xirxiraan oo khad lagu sheekaystaa jira waa gartay groupkii baan iska wacay oo meeshii baan galay oo sheekan iska qabsaday moogta haye waxaan maqlay cod ah baby what kind of language you talking about today oo gadaal baa ka maqashay xaggii sariirta waxay isiri waniho ma maskaxdaada ma waxaa maqashay ha gaariga inna kuma ogeyn moogta ani keligay baa wada waa tahay markaasan baaba lagu yidhuun waa maxay luqadda ku hadlay what kind of language you talking about today gaariguna dee waa guux badan yahay qof telefoon ku jira xaggana cod baan ka maqlay markaan wax yar socday oo sheekadii aan sii waday anigu groupkaygii baan maba ku mashquulinba wixii waxaa isiri waa adiga niyo niyadaada waaya isiri islaantii oo dee sida dadkan u labisane bahalo yaryar halkaa maaragtay ku wadato oo iyo bahal yar oo gaaban wadata ha waa markaa gabadhu waa gabadh caddaana ha waa gabadh cadaan adigu ilaa da'da sodomeeye meelahaas ah waa tahay waxay soo istaagtay halkan hore ee anigu gaariga aan ka wadayay sariirtii bay ka soo kacday daahina way iska soo furtay ha waa tahay gaarigiina waa socdaa highwaygu saaran yahay isla markii way ogaatay iyadu inay khaldan tahay haya gaarigii bay eegtay oo sijaayadii aan ku tukanayay iyo wixii gaarigii inuu ahayn way aragtay markaa iyadu way isgaratay markaa waa tahay mar alla markay aniga ila hadashay baan yaabay oo naxo fijacay haddaanan naxdin u dhiman maalinkaa nasiib baa walahay marka xagga dambuun baad eegtay waxaad aragtay qofku dul taagan hal marun baan saa u eegaya islaanti madhaadeer oo dee si u qaawano si fiican u haye anigu dee maba soo qaadan ba waxaana bini aadam ah waxaa isiri jim baa saqafka kore gaariga ka soo galay ma aqaan jim baa soo galaa isiri gaariga haye marka gaarigu aad buu u socday dabcan bismillaahi araxmaani araxiim hadduusan gaarigu ila dhicin ba nasiib baan lahaa haye naxdin leh markaasaa wadadii baan ka baxay shoulderkaan istaagay waxaa shoulderka la yidhaahdaa halkan highwayga qarkiisa ahee markay wax kaa xumaadaan la istaago waa gartay marka bareegii ma hal maraa wada qabatay macnaha jawaabtaasay ahayd halaaj iyo geerkii oon foolla ka dhigay wixiiba waa isku daray waa tahay wada hal mar gaarigii taayiradii qiiq baa ka kacay qiiq bareegyada isoo uray haya haye still ma believe garaysni waxaan inuu insi yahay taagotaa waa iga soo dababoodayadu waxay rabtaa inay dhahdo qalad baa dhacay raalli ahoobo come down please come down taasi ku haysaa haye dheg uma dhigine waa ka cararay haye ma cuudubilaysatay intaa cararaysay dee cuudubileysi ayad kursi yaasiinka waxaanu isku darinba male intaad qur-aanka ka taqaaniba waad iska dhamaysa alla inta aqaani waan akrinayaysaa anoo wax akrinaya dhinaca ka hordaya wixii anigoo dhan ba dhiis baan noqday haye barkiibaaba igu qoyeyba haye alla rafaad weyna markaanu iscayrsanayno ku dhawaad 10 daqiiqo ha waan istaagay naagtii waxaa yidhi horta haytaaban halkaa istaag marka way ii sheegtay waxay tiri qalad baa dhacay gaarigaygii baan mooday khaladkaaga mooye waxaan ku yidhi naftayda horta riski baad gelisay haye waa dhiman gaara dhahda maanta waa cagacadda masaakiinta iyadaaba markii dambe u nax meeshii baad dib ugu soo noqoteen markaa ay kaa soo raacday meeshii baan dib ugu soo celiyey ha haye saa ninkii baaba daalac u qabsaday naagtii oo anna i qabsadayoo buuq dhaliyay isna waaba hinaasayba uuba hinaasay oo wuxuu leeyahay naagtan adaaba kaxaystayba war waxaan ku yidhi wax ma kuu sheegaa haddadaa inaan booliis waco
inaa iga tagtaan oo naagtaada iga kaxaysato wax ka dhexeeya male maxaa dhacayo boolis wacaysayo naagtaydii baabad kaxaysatay see boolis wacda adaaba iga khaldane ani gaarigaa la gadoomi gaari naftaydiina maanta halis ay gashay hay inaan sharciga ku kala baxno ina tagtaan oo naagtaada kaxaysato wax ka dhexeeya male naagtii baa la wareystayo mar alla markaan sheekada uga sheekeeyaa la kala daatay hay waaba wax qoslamo waa kala lawa hay dadkani maxa inta badan xadgudubka ma jeclo oo khaladka ma jeclo oo ninkii waa iraali geliyay